يا هلا 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 حن قلبي على جمعة الخير هلا حن قلبي على جمعة الخير هلا يا هلا ويا هلا ويا هلا ويا هلا يا هلا ويا هلا ويا هلا ويا هلا حن قلبي على جمعة الخير هلا حن قلبي على جمعة الخير هلا بالحب اجتمعنا وربنا يحييكم بالحب اجتمعنا وربنا يحييكم بالحب اجتمعنا وربنا يحييكم بالحب اجتمعنا وربنا يحييكم مرحبا ويا هلا فيكم انتم منا وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد waxaa maanta bixamdillah aynu wada joognaa iskuulkii Ilays oo ka mid ah iskuullada magaalada Burco ee waaweyn oo isugu jira dugsi dhexe iyo dugsi saraba aad iyo aad baan u salaamayaa ardayda sharafta badan ee quruxda badan ee soo kacaya ee u soo baxaya magaalada Burco iyo dalkaba Ilaahay subxaanahu wa ta'ala ka dhigo aqoonta ay baranayaan aqoontii dadka iyo dalkaba wax tari lahayd ee anfici lahayd ee horumarka ka shaqeyn lahayd waxa weeyaan dhinaca diinta iyo dhinaca adduunba walaalayaal waxaan doonayaa kelmad aan badnayn oo kooban oo dardaaran ah in aynu wada wadaagno insha allahu tabaaraka wa tacaala runtii cidda ay hor fadhida maadaama ay u badan yihiin dhalinyaro soo koraysa waxyaalaha ugu badan runtii waxay u baahan yihiin dardaarano runtii fara badan iyo waanooyin kala duwan oo waayaha nolosha iyo wixii wacdi iyo waanaba ah ee ay wax ku qaadan karaan waxaan doonayaa walaalayaal dhalinyaradu mashaakil fara badan ayaa soo mara oo da'yartu inta ay da'doodu inta yar yihiin waxa laga yaabaa caqabaad fara badan iyo dhibaatooyin fara badan inay soo waajahaan ama inay soo maraan noloshooda waxaan doonayaa hal mushkilo oo ka mid ah mashaakisha dhalinyarta ama da'yarta aadka u saamaysa in aynu insha allahu tabaaraka wa tacaala aynu ka wada hadalno mushkiladaas oo ku saabsan mukhadiraadka ama maandooriyaasha maanka dooriya bal wax ka mid ah insha allahu tabaaraka wa tacaala inaynu iska waanino oo aynu wax iskaga sheegno insha allahu tabaaraka wa tacaala walaalayaal mukhadiraadku ama waxa la yidhaahdo maandooriyaha waa wax kasta oo caqliga qofka aadamiga ilaahay u yeelay subxaanahu wa tacaala wax kasta oo bedelo oo dooriya waxa la yidhaahdaa mukhadir ama maandooriye qaybo fara badan ayaa mukhadiraadka ama maandooriyaashu ay u qaybsamaan waxaa ka mid ah waxyaalo nabaatiya oo soo baxa oo la isticmaalo waxaa ka mid ah dhir marmarka qaarkood ay dhici karto qofku inuu ursado waxaa ka mid ah waxyaalaha taqaanaan sigaarka waxaa ka mid ah maandooriyaasha soo gelaya sida dhakhaatiirtu ay tilmaameen qaadka waxaa ka mid ah oo waxyaalaha aad wada garanaysaan ka mid ah يعني حشيشة iyo khamriga iyo waxyaalaha noocaas kullu hadii ashyaa walaalayaal ma waa maandooriye waa waxa aqliga qofka bedelaya ee doorinaya walaalayaal ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa uu inoo abuuray maskax ilaahay wuxuu inoo sameeyay caqliga rabbi uu inoo abuuray subxaanahu wa tacaala waxa ilaahay ugu talagalay inaynu wax ku fahanno oo wax ku weeleeno sida awgeed qofku haddii aan caqli haddii aanu lahayn oo qofku uu waalan yahay waxa ilaahay uu ka dhigay qofka marfuucul qalam qof aan waxba la weydiinaynin qof aan waajib saarnayn qof aan wax weeyaan xaaraan ama dambi loo qoraynin ayuu rabbi ka dhigay caqliga walaalayaal ilaahay mansiladiisa wuu sharfay oo wuu weyneeyey oo caqliga rabbi subxaanahu wa tacaala waxa uu ka dhigay inuu yahay manaatu takliif qofku marka uu noqonayo mukallaf qofka marka waajibka wixii waajibaadana laga doonayo waxna ay xaaraan ka yihiin waa qofka mukallafka ah ee caaqilka ah
عقل ربي ويا سبحانه وتعالى ولا ريال كرامين إلهي عقل جينا وكرامي وحيالها إن تصيني وحكم إذا إن من دورياش عقل بدلية دورية إن ربي وديدي أو حارنتني مي وخمري وكل القرآن كإلهي وكو حارنتني مي ربي وحوري سبحانه وتعالى ويسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما وحي كويدينيا خمرك يا قمارك أيان لقويدين يا عطاطها رسولك إلهي وحد كنت جوابتاه فيهما إثم كبير وحكو السجن دنبي آدي وين آية كالسجن مركز ولي إلهي وحوت المامي وإثمهما أكبر من نفعهما فإذا يرى إدعي كرتوين كالسجن تاعي خمرية وحكوين لبعضها قفك وقينيه يمن دورنت عقلك قفك وبدليه ولا رأي الآيات فربضا إلهي سبحانه وتعالى وحوك قول رمي عقلك منزلة أولية أفلا يعقلون يعني عقل هين أفلا يتفكرون يعني فكرين يعني مسكح لك قشقيسين إذن عقلك ربي واشرفي وانا كرامي سبحانه وتعالى سيدا وقد ولا رأي القفك إنه يسوح استعماله وعقلك يسقفك وكبدل وكدوريه وحيالها ربيين سبحانه وتعالى وحرانتين محرم كوكده سيدا أوجد ما وحلا يقفك وضي خمري هدو عبه وعقلك يسقفك وبدل أو دوريه وحلا قدونا يا أما قفك وحلا وعقامة يا وحلا إذا هذا حد الخمر وإن قفك لحديه أفرتن شادل أيا لو حدينا يا أو لو قراعية أفرتن شادل أيا لو قراعية قفك يضل لو عقامة يا عقلك يسقفك سينو دوريه وإنه بدلي والله نحن نسويدين كنا هضبة محاكينا مخدراتك حق أرضيئة أما دليرة أما دائرة محاكينا إن عقل وذا أي دوريان محاكينا إن مخدراتك أما وحيالها مخدراتك ما ندوريناش أقفكم استعماره أسباب بدن بينيدا لكن صدح شيء أما صدح سببات أيها كسوق عن دونا سببتك وبدونا ريال أصحاب تحنحن قفك أويا لريو waxa ay ka qayb qaadanaysaa in qofku xumaanta mukhadaraadka iyo maandooriyaasha iyo xumaan kastaba asxaabtu inay u noqdaan sabab sidaa wada walaalayaal qofku inuu ilaaliyo asxaabtiisa oo uu ilaashto asxaabta wanaagsan oo uu iska ilaaliyo asxaabta xunxun oo wax rabbigana uu farayo subhanahu wa ta'ala asxaabta wanaagsan sharaf badan baa ilaahay u yeelay subhanahu wa ta'ala الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين أصحابتي أدونك أصحابتك وها آخر وحيسون قريان عم داهي قوي وحيسون قريان عدو إلا المتقين إلهي حكسر ردتك إلهي كعبسنا إلهي كبقية سبحانه وتعالى dadka ku saaxiibtoomoobay ku walaaloobay saaxiibtinimadooda iyo walaaltinimadoodu ay tahay cabsida ilaahay subhanahu wa ta'ala iyo wax ilaahay u dhaweynaya sida awgeed saaxiibka hadduu xun yahay oo uu mukhadaraad u isticmaalo sigaar ama qaad ama tusaalahan xashiishad ama waxyaalaha kale mukhadaraadka wadada u ah sida wax weeyaan buurida waxyaalaha soo dhamay saaxiibkaas wuxuu noqonayaa saaxiib xun haddaad la sii saaxiib ahaatana marka dambe wuxuu kuu qurxinayaa oo uu ku wanaajinayaa xumaantaas oo marka dambe waxaad arkaysaa adigoo ku dhacayba sababtaas waa ta koowaad sababta labaad waxyaalaha walaalayaal in badan nolosheena saamaynta ku leh waa asxaabta qarsoon oo ah media waxa la yidhaahdo social media ama internetku isaga laftigiisu saameyn fara badan ayuu ku yeeshaa nolosheena sida awgeed haddii qofku in badan uu mutaabiceeyo ama qofku in badan uu daawado dadka waxyaalaha isticmaala ama qulunka ama maandooriyaashaas waxa laga yaabaa ama waxa laga baqayaa in qofkaasi hadhow uu la mid noqdo oo sida waxa isticmaalayaan oo kale qofkaasi uu la isticmaalo sababta saddexaad walaalayaal in xayasiiska fara badan waxa laga yaabaa ninkii dhalinyarada ahaa in badan inuu maqlo dad xayasiinaya ama koolkoolinaya waxyaalaha maandooriyaha qofka caqliga ama qofka maskaxdiisa bedelaya
dabeedna qofkii yaraa ama inankii yaraa hadhow uu ku kadsoomo oo uu moodo wax wanaagsan waxan inay tahay oo dadna uu doono inuu tijaabiyo walaalayaal haddaba waa maxay dhibaatooyinka iyo aahaarta salbiga ah ee xunxun ee dhibaatada ama mukhadiraadka iyo maandooriyaashu ay dhib ay ku leeyihiin nolosheenna ama nolosha ardayga ama nolosha da'yarta soo koraysa runtii walaalayaal dhibaatooyin fara badan ay leeyihiin waxyaalaha mukhadiraadka la yidhaahdaa anwaacdeeda kala duwan hadday tahay xashiishadda hadday tahay khamriga haddii ay tahay sigaarka waxyaalaha in qofkii da'da yaraa ama dhalinyartii inay joogteeyaan waxay keenaysaa aahaar iyo raadad xunxun in nolosheenna runtii ay ku keento waxaa ka mida kow dhibaatooyinka uu leeyahay dhibaato ijtimaaciya xagga bulshada oo qofka isticmaala waxyaalaha mukhadiraadka ee maandooriyaasha ah waxaa dhacda in badan in qofkaasi uu noqdo qof muncasil ah oo goonin socod ah oo ummadda kale ka go-an oo daa'iman ay dhacayso in badan in isaga iyo dadkii kale ama bulshadii kale ay isfahmi waayaan oo dadka guriga ay wada joogaan ay isfahmi waayaan oo ay kala dhaqan noqdaan oo ay kala fakar noqdaan oo qofkii uu noqdo qof gooni u socoda waayo wuxuu bartay sigaar ama wuxuu bartay qaad ama wuxuu bartay mukhadir kale iyo maandooriye kale runtii waxay leedahay dhibaato aad iyo aad u badan waxaa kaloo ka mid walaalayaal dhibaatooyinka ay leedahay qofkaasi inuu noqonayo nafsiyan nafsi ahaan qof waxa weeyaan aan degnayn oo aan xasilnoon qof xasilan ma noqonayo qof aan xasilnayn buu noqonaya qof wuxuu noqonaya maxay mudbariba oo in badan soo dhawaada sheekh wuxuu noqonayaa qofkaasi qof mudbarib ah oo aan xasilnayn oo dhibaato runtii waxa weeye qof ku sugan ayuu noqonaya oo marka la arko ilmahaasi qaabku u fakerayo iyo fakarkiisa waxuu dareemayaa qofkaas siduu u fakerayaa inaan ahayn sidii fakarkii dadka u fakeri jireen nafsiyadiisu inaanay ahayn nafsiyaddii waxa weeyaan dadka kale qaabkay u dhaqmayeen taasna waxaa keenaya mukhadirka ama waxaa keenaya mushkiladdaas mukhadiraadka iyo maandooriyaasha qofku inuu isticmaalo saddex dhibaatooyinka walaalayaal mukhadiraadku ay leeyihin waxaa ka mid ah dhibaatooyin xagga xoolaha ah oo ardayga maanta barta ama dhallinyarta maanta barata maandooriyaasha dhibaatooyinka ay leeyihin waxaa ka mid ah in qofkii xoolihiisii iyo lacagtiisii iyo qarashaadkiisii oo dhan waxaa qaba waxa weeyaan maandooriye oo waxaa laga yaabaa lacagta yare uu helay ama nusu saacahu qaadanayo ama qofku lacagta kale qofku uu helayo inuu ku bixiyo sigaarkii ama qaadkii qofku maalinkaa inuu siisto taasna runtii walaalayaal waa dareemi kartaa dhibaatada bulshadeena maanta haysata nisful mashaakisha maanta inay haysato kala bar oo badh waxaa laga yaabaa maanta inay noqoto mukhadiraad haddii aanay nus ka badanba waxaa kaloo walaalayaal dhibaatooyinka mukhadiraadku ay ugu leeyihin waxaa ka mid ah mushkilooyin xagga dhaqankii akhlaaqdiya akhlaaqiyan qofka ama ardaygu in akhlaaqdiisu ay wanaagsanaato oo dhaqankiisu u wanaagsanaado waa waxyaalaha ugu badana maanta ay wax u baranayno walaalayaal akhlaaq wanaagsan iyo dhaqan wanaagsan in qofkii maanta uu helo mukhadiraadku walaalayaal waxa ay la dagaalamayaan dhaqankaa wanaagsan akhlaaqda wanaagsan ee ardaydu maanta laga dooni lahaa waxaa la dagaalamaya mukhadiraad oo qofku hadduu waxyaalaha uu isticmaalo waxay keenaysaa in qofkaasi inaan akhlaaqdiisi inaanay noqon akhlaaqdii loo baahnaa oo dhaqankiisi inaanay noqon dhaqankii loo baahnaa runtii walaalayaal mashaakisha kale uu leeyahay mukhadiraadku ama maandooriyaashu waxaa ka mid ah mushkilooyin ku saabsan xagga maskaxda oo ardayga maanta mukhadiraadka isticmaalaa xagga maskax ahaan maskaxdiisu way ka waxweeyaan liidata ama way ka hooseysaa maskaxda ardayga kale ee aan mukhadiraad maanta isticmaalin ama maandooriye aan isticmaalin taasina runtii walaalayaal waa mushkilo aynu dareemi karno oo qofkii ardayga mustaqbalkiisii iyo horumarkiisii ayay taasi runtii ay waxyeelaysaa waxaa kaloo runtii walaalayaal dhibaatooyinka waaweyn ka mid ah mukhadiraadka weliba si gaara sigaarku waxyaalaha uu keeno iyo dhibaatooyinka uu keeno waxaa ka mid ah in uu waxa weeyaan qofka xubnihiisii inuu baabiinayo oo tusaale ahaan sanbabada iyo qalbiga maskaxda iyo waxa weeyaan keliyaha intaba waxaa baabiinaya sigaarka waxa weeyaan la isticmaalayo oo waxay yidhaahdaan qofku muddo hadduu joogteeyo sigaarka dhibaatooyinka uu leeyahay waxaa ka mid ah sanbabadii ama sanbabihii qofku waxa weeyaan ay dhimanayaan oo waxa weeyaan yacni qofkii
keligiisi hadhow inay sabab ay u noqon karaan mukhadaraadku isticmaalaya hadhow talaf inuu ku dhaco ama inay baaba'aan ama in fashal kalawi oo shaqadii ay joojiyaan oo ay istaagaan walaalayaal dhibaatooyinka kale ee mukhadaraadku ay leeyihin waxaa ka mid ah koritaanka dhalinyartu ay korayaan oo waxaa la yidhahdaa maskaxda qofku ama maskaxda dhalinyartu waxay koraan ilaa qofku inta uu gaarayo da'diisu 25 25ka wixii ka horeeya maskaxdu way kortaa oo waxa weeyaan maskax waxa weeyaan weli waxba u dhiman korkeedii iyo waxa weeyaan weli kartideedii sidaa awgeed haddii dhalinyartu ay isbarto mukhadiraadka iyo waxyaalaha maandooriyaha ah waxaa dhacaysa maskaxdii koritaankii ay koraysay inay joojiso oo aanay korin oo koritaankeedii in waxa weeyaan gaabis uu ku imaado walaalayaal dhibaatooyinka mukhadiraadku ay leeyihiin waxaa kale oo ka mid ah mustaqbalkii ardaygu inuu lumo oo mukhadiraadku dhibaatooyinka ay leeyihiin waxaa ka mid ah mustaqbalka ardayga ama ardayda mustaqbalkoodu inuu lumo oo waxa weeye habaabo taasna walaalayaal waxaa keenaya waayo diraasadii qofkaas dhaawac bay ku keenaysaa mukhadiraadku isticmaalay maandooriyu isticmaalay waxay ku keenaysaa dhaawac diraasadiisi waxay ku keenaysaa dhaawac mustaqbalka hadduu hadhow sidaahdo shaqayso shaqadiisii waxay ku keenaysaa dhaawac haddii hadhow uu sidaahdo tusaalahaan guurkiisii iyo calaaqaadkii uu sameynaya xagga qoysnimo iyo reernimo waxay ku keenaysaa dhaawac taasina runtii waa dhib aad iyo aad u daran oo dhalinyarta laga yaabo inay ka qaadaan mukhadiraadka isticmaalayaan haddaba walaalayaal maxaa haddaba cilaaji maxaa dawa ah dawa maxaa u noqonaya haddii qofku maanta uu isticmaalo mukhadiraad ama maandooriya ama ardaygu tusaale ahaan uu caadaystay waxyaalaha maandoorinaya ee waxaweye maandooriyaasha ah oo mukhadiraadkaas maxaa u noqonaya cilaajiyo dawo cilaajaadka walaalayaal waxaa ka mid a kow ardayda horta in laga wacyigeliyo oo dhalinyarta weliba si gaara wacyigelin badan loo sameeyo oo dhibaatooyinka looga sheekeeyo mukhadiraadku ay leeyihiin iyo waxyaalaha waxaweye maandooriyaashu laba waxyaalaha kale ka mida walaalayaal ama ka qayb qaadan kara xagga cilaajka iyo dawada waxaa ka mid ah qofku inuu samaysto saaxiib wanaagsan saaxiibka wanaagsan ee ardaygu uu samaysanaya aakhiro wax buu taraya uu anfacaya saaxiibka xun ee qofku uu yeelanayo aakhiro qofka waa dhibaateynaya qur-aanka ilaahay wuxuu kaga warramay meelo badan asxaabta xunxuni dhibaatooyinka ay leeyihiin oo ilaahay subxaanahu watacaala waxa uu ka warramay qofkii xumaaday aakhiro marka uu tago inuu ka shallaynayo oo uu ka xumaanayo saaxiibka xun ee uu samaystay ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا مالك قالوا وحقالك أورم دونا انتو فرت بحنا كقنينه الله محام وسويستي صاحبك حن يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا الله وحويان هو قيقي وحن شعلان لها هبل أيا إلمي هذا بيه هبل إلى المصاحب كدقى اللهين لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا هبل وحوي يقول لي وضد ربي سبحانه وتعالى سيدي أوجد ولا صاحب ونفسنا مسمى سناه ووحيالها آخرين كبت بهذينه saaxiib xun in la samaystana oo waxyaalaha aakhiro lagu lumayo ee lagu halaabayo ee qofku naarta uu ku mutaysan karo ciyaadan billaah waxaa kaloo runtii walaalayaal ka mid ah dhalinyarta in la saacido oo lagu kaalmeeyo mashaakishooda in hoos loo ogaado oo lala socdo oo laga warhayo oo markaa la arko tusaale ahaan inan dhalinyar ah ama inan tusaale ahaan waxyaalahaas mukhadiraadka ama maandooriyaha isticmaala in waxweye la wacyigeliyo oo loo nasteexeeyo lala taliyo runtii walaalayaal dardaaran guud arday maasha allah maanta waxa weeyaan wax baranaysa oo soo koraysa oo berri ka maalin insha allah mustaqbal fiican iyo horumar wanaagsan doonayo inay gaarhaan ayaa tihiin biidni illahi tabaaraka watacaala runtii walaalayaal aynu ogaano mustaqbalka fiican aynu doonayno inaynu gaadhno waxyaalaha aynu ku helayno waxaa ka mid ah inaynu ogaano noloshan dunidan aynu joogno maxaynu u nimi in inta la isweydiiyo ilaahay muxuu inoo abuuray subxaanahu watacaala walaalayaal noloshan adduuna aynu joognaa waa nolol kooban rabbina wuxuu inoo abuuray subxaanahu watacaala arrin aad iyo aad iyo aad u weyn oo ah in rabbi la caabudo
إلهي وحوري وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون جن إنس وحوا أبوري إلى أني إعابدان سيدا أوجد وغليال هدين دونينا إن مستقبل كينا هرمرفي عن إنو قارو أقوانت عين ضربين مرفي عن بريك معنا إنو نكهلنا الدنيا آخرة إنو نليمانه أي نسكت إنو دينتين شرعنا إنو نحكبرنا وأقول نكسر إنو إيالنا ودينتين إنو وحاوه الرئية صلاة إنو نيراننا وإنو كدنانه وصلاة إن أتكتو شنت صلاة الله يقبسا وشنت صلاة ميسك أيكو ساريين وشنت صلاة مرنبا أنا الولاعي كاقلين يوحويا هرم شنت صلاة وراء إنو إيران لا يحكوش لبدبادنا إنو بدبادنا أن الدنيا آخرها ويحكوش لصلاة إنو دورنا وإنو إيراننا وحيانا كرولا لأيوبا أنه يحكم ذا والدك إنو مقلنا قف كسد إلهي سبحانه وتعالى وحكو أرزاقي لبو والد وشرف بضن وآبيه هوية وقالوا هريقين دنبضا ما علمي هبين بكفكرية هرمركانا يسال هرمرا يقاري الهيت سيدا وقال إلهي غفر إحسان يسمى فر وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا والدك الله سمى فر وسمى فر الله سميه ووالدك الله مقله والله أطيعه ووالدك نقله شيء وحوية قفكو كأمر قادنيه والدك ولا يكون جعليه وحوى نفسا الدنيا آخرة والدك يكون جعليه هرمر إلى بلاده سيدا أوجد والدك إلى مقلنا وأين أطيعنه وأنت يقوليهين أين سمفلوا سمونه هذه أي بنتان من الأدعية والله إلهه رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وحكمت ولا يروح لها أي أبا أنتهي إلى مسكوعي قلنه وحكسوا كما قبيلية وحولا لا يبقى أنها أخلاق ونكسب رسولك صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وحوت المامن إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق وحكرم الله وحل إلى الصادرين أخلاق ذاتيد ونكسب إن حويا أن دوره أن إرالي وأن دميستر إلى النبي صلى الله عليه وسلم سيدا أوجد أخلاق ونكسب يدخل ونكسب تدك إذا نقوى وين إلى نكرم عامله تدك إذا لا غاية نتكرم عامشان dadka idinka yar inaad kula macaamishaan akhlaaqda wanaagsan dadka idinka waaweyn waa waalidka iyo macallimiinta wax idin dhigaya inaad ixtiraamtaan oo macallinka la maqlo oo la ateeco oo la ogaado macallinku inuu yahay waalidka oo waalidku marna waa waalid diiniya oo xaggii diintii iyo aqoontii iyo horumarkii waalidku huwa marna waa waalid diiniya oo waalidkii dhoobada ee ilaahay subxaanahu watacaala sababuu kaa dhigay inuu xaweeyaan يعني الدنيا اعتماده سيدا وجد ولا الوالد كإلا احترامه وحك سوق دقليا معلمين وإذن بدين سيد المقشان والاحترامتان وأنا حوالي لك عن سيري والله مقله ومعلمين لا احترامه والله ما مصول شرفه وحكمتي أخلاقه ونكسا تدك كلا عامرة السوق يلجونه إلا احترامه والبقم الأخلاق ونكسا ومعامل ونكسا أن كل معاملنا وحكمتي ولا عليها وحيالها ونكسا أيضا عنها إلهي سبحانه وتعالى ولا يروحون ويتسنينا نوشن دنيا أي تشوغنو أنت يرى كوبر أي تشوغنو إن الله سبحانه وتعالى نولل ونكسا وعن رب أنت أو لبدايه آخرتين مركي نقطنا إلهي سبحانه وتعالى جنة الفردوس إننا يوالدين تين يمعلمين تين يضدك وحين الضري يضد المسلمين تورنبه إن الله سبحانه وتعالى الكاون قليه إلهي سبحانه وتعالى إن إنوضا نحرشت بمان تينبا رب ضلنا وادكتي يضدك ونبريان رب آدو بباهيين ضدك مركا إن شاء الله تعالى يعني بلا دلوته الدنب من يريهي أما انضرنا كم مكلف بانا هاي إلى الله برينه سبحانه وتعالى وأين هو بيتي سنه سلاوة قعمها أين سراو قاضنا إلهي رأي برينه ربنا إلهي بيتي سنه اللهم أغثنا يا رب العالمين اللهم أغثنا يا ذا الجلال والإكرام اللهم اسقنا يا رب العالمين اللهم اسقنا وأغثنا يا ذا الجلال والإكرام اللهم اسقنا ولا تجعلنا من القانطين اللهم أغثنا ولا تجعلنا من القانطين اللهم أغثنا ولا تجعلنا من القانطين اللهم أغثنا ولا تجعلنا من القانطين اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا مريعا
اللهم اسقنا غيثا نافعا غير ضار، اللهم اسقنا غيثا عاجلا غير آجل يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.